halkanoo ah deegaanka Highland ee degmada Baran ee gobolka Sanaag waxa ku aasan Sheikh Daarood Ismaaciil iyo Dobiro iyo inta badan awlaadii ay dhaleen. Sheikh Aadan Siciid oo ah qaadimka qabriga Sheikh Daarood oo aan ku booqanay deegaankaasi ayaa nooga warbixiyay taariikhda Sheikh iyo awlaadiisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allah way meeshan waa Highland waa Daarood ana waxaan Sheikh Aadan baa la yiraahdaa wadaadka meesha jooga baan awood qaadimkiisa joogayna 42 sano kana hadda 43 noqonaya insha Allah halkan waa Highland waa badan iyo daaftin dhexdooda Sheikh Daarood baa ku aasan dariixiisi weeye marka intii daawatana insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa ninkii iman kara oo awowgii soo barakaysan karo siyaaro ku iman kara iyo nin kale si kale u soo siyaartaba waka inuu barto oo la socdo oo yaani aqoonsanaado meeshu ku aasan yahay meelan ka fogeyn qabriga Daarood Ismaaciil waxa ku aasan sadeed Daarood oo kamid ah awlaadii uu dhalay halkan waxa weeye waa isla Highland Sheikh Daarood watan hadeerkan nimi halkan waxa weeye Sheikh Sade waxa weeye halkan waa dariixa kan waxa weeye Sheikh Sada la yiraahdaa magaciisa asalka ah waa Sheikh Xasan Daarood marka waxa weeye dadka uu dhalayna waxa weeyaan Mareexaan riyada Mareexaan aabahood weeye marka sidaa way dadkii deynta taqaan waa taqaan laakiin intaan aqoon baa loo sheegayaa sidaa way hadda la yiraahdo hawa la siyaartaa oo waa la yimaadaa oo meel badan baa laga yimaadaa dalka laga yimaadaa dibadda laga yimaadaa meel walba laga yimaadaa waa la siyaartaa dad badan oo Mareykanka ka yimi dad kale oo dhulka kale ka yimi oo intii soo badalka markay yimaado si siyaarta kuwa kale oo gobolladan oo dhan waa laga yimaadaa waa la siyaartaa qabuura la siyaarto oo yaani hadii loo duceeyo quraanka lagu akhriyo lagu alla baryo Ilaahay lagu baryo Ilaahay loo baryo iyagana quraanka loogu duceeyo marka sidaas weeye sidoo kale waxaan booqanay qabriga Dobiro oo ah hooyada dhashay ilmo Daarood waxaana nooga warbixiyay mid ka mid ah culimada deegaanka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Halkan aynu joognaa waa qabrigii ay Dobiro weeye waxay ku dhowdahay Sheikh Cabdiraxmaan Daarood qabriga Highland oo Daarood bay ku dhowdahay iyo Sheikh Sade iyo adigu awliyadii oo dhan ku aasan halkan waa qabrigeedii awal dariix buu ahaa iska caadi ah waa la hagaajiyay waa la dhisay waa laga shaqeeyay marka dadku ha barteen hana la socdeen daliya dibadda waxaan leeyahay soo siyaarteen ay Dobiro dadkuna ha barteen intii taqinina waa taqinina inta kalena ha barato qabrigi waa kaas halkan xagga sunnada waa ka ay Dobiro sheekhana waa sheekhi muruudka Highlandka ahaa oo Daarood iyo qabuurahan oo dhan. Sheikh Aadan Siciid oo ah qaadimka qabriga ayaa ka codsaday umada muxsiniinta in deyr loo dhiso qabriga Daarood Ismaaciil si aanay xooluhu u dulmarin. halkan waxay u baahan tahay marka in yar oo baahida markaan ka hadlo deyrkan awoow Sheikh Daarood badda hariiriisa waad aragtaa deyrkaas wuxuu u baahan yahay aan codsanaynaa in la dhiso insha Allah awlaadda ha noqoto cid kasta ha noqoto cidii yaani ka barakaysanayso oo dhan inay deyrka la dhiso intaas aan codsanaynaa insha Allah deyrkaas wuxuu rabaa in la wareejiyo xoolaha iyo maaragtay soo gala marka saarada iyo wax walba waa soo galaan marka inta marka la wareejiyona waxay noqonaysaa meel diinta lagu akhristo oo badda hareeraheedu la iska fariisto insha Allah intaas aan codsanaynaa Ilaahay idinkiisa islaam dadka weynaha yaani maaragtay arinta dhageysanaya inay intaas soo ka qayb galaan oo dhismahaas oo inta la dhiso bismillaahi kariim wa Maxamed Ali warbaahinta dawladda magaalada Baran ee gobolka Sanaag.